بسم الله الرحمن الرحيم maanta way bishu tahay 14 bishii 2 anigoo aqoon-yahan Saleebaan Ibraahim shirkan jaraa'id waxaan kaga hadlayaa arrimaha wadanka ka socda ee ah xatooyada qaranka gaar ahaan gobolka Saaxil waxa ka dhacay 7 sano ee na soo dhaafay boob baahsan oo ay sameeyeen xukuumadii Usiilaanya oo madaxweyne ka ahaa raga boobay berbera waxa number 1 ka ah Morgan 7 sano ayuu gobolka Saaxil hantidiisii boobayay iyadoo dadka gobolka Saaxilna ay gaajeysnaayeen in badanina ay u dhinteen caro oo stroke ku dhiftay maanta rajada la sugayay waxay ahayd dawladda Muuse Biixi oo shacabka reer berbera 80% ay codeeyeen boobka baahsan oo ay sameysay xukuumadii hore maantana ay muuqato in laba xukuumood iska gudisan yihiin waxaan markaas halkan ku cadeynaya Muuse Biixi fariimo badan ayaan ku soo dirnay oo aanu kaga hadlaynay boobka berbera ka dhacay waxa laale iyo wuxuu ka qabtayna ma jirto fariinta aan maanta halkan ka diraya waxa weeyaan Muusow reer berbera xaqoodii bay waayeen way dul qaateen way samreen waxa weeyaan 7 sano wixii dhacayay waxa la lahaa Siilaanya mooga maantana waxa bilaamantay boobkii ugu dambeeyay ama xatooyadii ugu dambeysay ama foolxumadii ugu dambeysay waxa sameeyay Saacad Xaaji Cali Shire iyo Morgan waxay sameysteen shirkad ay rabaan in lagu boobo khayraadka berbera shacabka reer berbera hadaba aqbali maayo markii aan tashi fara badan la sameeyay dhawaan waxaan ku dhawaaqi doonaa Saaxil State waxaana madaxweyne ka noqon doona Saleebaan Ibraahim aqoon-yahan Saleem oo aniga ah waxaan ku cadeynayaa waxaad haysataa waqti 7 casho 7 days 7 casho hadii aad hay'adda la rabo in berbera lagu boobo ee ninka leeyahay Morgan iyo Saacad Xaaji Cali Shire ay sameysteen hadii aad laali weydo iyagana aad xilka ka qaadi weydo DP walna dalka ka saari weydo ballan qaad cadna siin weydo ballan waxaan ku qaadaynaa in aan u tashan doono gobolka Saaxil oo aan hogaamin doono degaankayga nin walibana uu degaankiisa ku noqon doono oo Morganna uu tagi doono war Ibraan adiguna wax halkaad ka talin doonta adeeg taas waa dhab waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa inoo ballana aniga oo taageero mug iyo miisaan la ka haysta shacabka reer Saaxil talooyin badan la yeeshay in hadii arinta aad waxba ka qaban weydo aan fulin doono aniguna go'aankaas oo aan soo dhisi waayo dawlad Saaxil State oo aan madaxweyne ka ahay aniga ayaa gacanteeda ku saari doona